Vocabulary study waa barashada ama daraasidda erayada cusub. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Vocabulary study waa barashada ama daraasidda erayada cusub. Vocabulary study ama new words eraya cusub. Aynu ku baranaynaa cashirkeennan ama in this videogan loquacious baa number 1 ah. Loquacious meaning waxa lagala jeedaa talkative oo chatty, waa qof hadal badan ama long-winded person, qof hadal badan ayaa waxaa la yidhahdaa loquacious allah, meaning talkative oo chatty ayaan kugu soo gaabiyey. macnihiisa ama wax lagala jeeda ay tahay qof hadal badan. An example tusaale, anigu had iyo jeer dislike waa aan nebcahay the loquacious people, dadka hadalka badan. An example, I always had iyo jeer dislike waa nebcahay the loquacious people, dadka hadalka badan. Squat meaning maxaa lagala jeedaa oo macnaheedu yahay to bend deeply, in lisku laabo si qoto dheer, at the knees lowyada, while resting on one's feet, markuu qof uu ku nasanayo cagihiisa saas cirbihiisa ku fadhiisanayo, feet cagaha uu saas ugu fadhiisto. Squat waxaa la yidhi marka saga squat meaning to bend deeply, loo soo laabo waa si qoto dheer, at the knees lowyada, while goortii resting la nasanayo, on one's feet qof markuu ku nasanayo cagihiisa. An example tusaale, he likes wuxuu ka helaa ama jecel yahay squatting kadalobsiga. He likes waxa uu jecel yahay ama ka helaa squatting kadalobsiga. Laconic waxa cagsigeeda ah loquacious, ayay lid ku tahay. waa qof afgaaban, waa qof aamusan oo hadal yar. Exactly. Laconic meaning waxaan ku macnayn using as few words as possible, waa isticmaal qof uu isticmaalo sida ugu suurtagalka ah ereyada ugu yar oo qof hadal ku soo gaabiyo, oo hadalkiisana macno leeyahay. Laconic meaning using as few words as possible. Pithy and concise waa hadal macno leh oo kooban. Pithy micno buuxda leh oo kooban. Pithy and concise, exactly, or brief. An example tusaale, I tried waxaan isku dayay to chat inaan la sheekaysto with a girl, gabar next to me oo fadhiday dhinacayga on the aeroplane, diyaaradda markaan saarneen, but laakiin she kept giving laconic answers to my questions. waxay siinaysay calisaan su-aalihii, waxay jawaabaha iga siinaysay hadallo gaaban, way iisoo gagaabinaysaa. meeshan hadal dheer aan ka sugaayo inaan inta ka galo, intii ka bilaabo aan xogteedu wada. Exactly. Laconic answers babliisiinaya waa jawaabo yar oo gaaban oo macno leh. Exactly. Wax waxa weeye dhukayga, meaning waxa la any only water resistant, waa mid kaliya biyaha iska caabin karta, ama solid ha ahaato oo adke, or semi-solid substance ama walxaha. Exactly. Semi-solid ama solid. Exactly. wax adka ahaadaan oo dareere ah oo adag oo dhigta wixii ka imaanaya ama wixii sii gelayay, both inside and outside labadaba marka la hayo hal marka wax la dhukaygaas. An example tusaale, what role does the wax in your ear hole fulfill? Alwir kalinkee ama doorkee ee dhukayga hoolka dhigtaada gudaheeda ay ku leedahay, kalinkee ku leedahay ama doorkee ku leedahay ay gudinayso ama ay fulinayso muxuu yahay? waxyaabo badan bay qabtaa. wax marka la yidhaahdo shaqo badan bay qabataa, wax badan bay protection u tahay, ka hortagtaa. What role does the wax in your ear hole fulfill? ayay fulisaa. kaalinka ama doorka waxi dhukayga dhigtaada gudihiisa ku jiro uu fuliyaa ama uufiyaa. wax
explicate meaning maxaan ku macnay to explain in loo sharaxo meticulously waa si faahfaahsan or in a great detail faahfaahin weyn in laga bixiyo. For example, tusaale, the murder case kiiska dilka is explicated meticulously waxaa loo qeexaa ama loo sharaxaa si kooban oo faahfaahsan ileen meesha dil baa yimid si lagu kala qanco. The murder case is explicated si loo qeexaa ama loo sharaxaa meticulously waa si kooban oo concise ah in loo sharaxo by the lawyer qareenka duu yahay. halla markaas tiptoe waa la yidhi meaning oo macnihiisu ama lagala jeedo to walk in loo socdo quietly si tartiib oo degan with only the tips of the toes oo lagu socdo keliya faraha hore foodooda keliya lagu socdo the tips of the toes touching the ground ayadoo dhulka lagu taabanayo lagula soconayo touching the ground ayadoo dhulka la taabanayo ground. Tiptoe. Stagger meaning waxaa lagala jeedaa to sway from one side to the other in isku ruuxo dhankan iyo dhanka kale gig sida dadkan socodka maaragtay balaayada socdo ama waxaa laga sida qof alkuluusta oo cabsan oo kale saas u dhacayo ma miisaano exactly or something not held firmly ana u taagnayn marka in position oo ama physically ahaan waxaa la to sway from one side to the other qofka saan inuu u geeyo saan dadan u weeco dan saan inuu u leeco dhankaan u dhaco stagger. dhalinyaradan iyagoo inta badan saasay u socdaan balaa iska dhigaan marka sida qof drunken man oo kale sida nin cabsan ama buuza alkuluusta oo kale lidaa to sway from one side to the other as if about to fall admoodid inuu ku dhoyo qofka inuu dhaco. An example tusaale, they stagger of a drunken man actually they stagger of a drunken man socodka uu soconayo sida qof cabsan. An example, they stagger of a drunken man they stagger of a drunken man. ألف لا كنا بي ألف لا سنا بي ألف لا قذي